Teil 1. Im Café. qaybta koowaad maqaayadda. Anna sitzt in einem kleinen, gemütlichen Café am Fenster. Anna waxay fadhidaa daaqadda agteeda maqaayad yar oo raaxo leh. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und warmem Gebäck liegt in der Luft. Urta qaxwada cusub iyo buskudka diiran ayaa hawada buuxisa. Sie rührt nachdenklich in ihrem Cappuccino und schaut den Menschen zu, die draußen auf der belebten Straße vorbeieilen. Si taxadar leh ayay u kicisay kabuucinogeeda waxayna daawatay dadkii oo si degdeg ah u dhaafaya bannaanka waddada mashquulka badan. Die Sonne scheint durch die große Fensterscheibe und wirft tanzende Lichtflecken auf den Holztisch vor ihr. Qoraxdu waxay ka soo ifbaxdaa daaqadda weyn, iyadoo iftiin qoobka ciyaaraya ku shubaysa miiska alwaaxda ah ee horteeda yaal. Plötzlich öffnet sich die Tür des Cafés und ein junger Mann betritt den Raum. Si lama filaan ah ayuu albaabkii maqaayadda u furmay. Wiil dhalinyaro ahna qolka ayuu soo galay. Es ist Lukas. Er schaut sich kurz um, sein Blick bleibt an Anna hängen und ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Er geht zielstrebig auf ihren Tisch zu. Waa Lukas. Wuu si kooban u eegay hareeraha, indhahiisuna waxay ku sii jeedaan Anna. Dhoola cadayntuna waxay ku soo dhacday wejigiisa. Si ula kac ah ayuu ugu socday miiskeeda. Lukas, hallo Anna. Kann ich mich zu dir setzen? Lukas, haye Anna. Ma kula fadhiisan karaa? Anna blickt von ihrer Tasse auf und ihr Gesicht erhellt sich ebenfalls, als sie Lukas erkennt. Anna ayaa kor u eegtay koobkeeda, wejigeeduna wuu iftiimay markii ay aqoonsatay Lukas. Sie legt den kleinen Löffel beiseite und deutet mit einer einladenden Geste auf den freien Stuhl ihr gegenüber. Qaadadii yarayd ayay dhinac dhigtay oo si farxad leh ayay ugu tilmaantay kursiga madhan ee ka soo horjeeda.